kusoo dhawaada wararka caalamka iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa kulamo ka wada degmada Dhuusamareeb. Wasiir Cawad oo la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee waddanka Soomaaliya. Biliiliqa baahsan oo loo geystay dukaamada ajaanibta ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. kusoo dhawaada warkii oo fidsan. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo galinkii dambe ee maalintii shalay gaaray degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo qayb ka ah dhismaha Galmudug oo loo dhan yahay. Wararka ka imaanaya Dhuusamareeb ayaa sheegaya Ra'iisul Wasaare Khayre saacadihii ugu dambeeyay uu kulamo kala duwan oo kula lahaa madaxdii Ahlu Sunna ee ku biiray maamulkii Galmudug kuwa oo dhawaan dood ka keenay heshiiskii ay la gaareen dowladda Soomaaliya. Socdaalka Ra'iisul Wasaaraha oo mar kale ku tagay Dhuusamareeb ayaa qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu dhiso Galmudug oo loo dhan yahay iyo sidii loo qancin lahaa hoggaanka Ahlu Sunna wal Jameeca oo dhawaan sheegay inaysan ku qanacsanayn sidii dowladda Soomaaliya u maamushay heshiiskii wada galeen. Amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa la adkeeyay waxaana halkaasi ku wada sugan ciidamada dowladda Soomaaliya oo isugu jira militariga, booliska iyo nabad sugidda iyo kuwa Djibouti ee AMISOM iyo weliba dalka Itoobiya oo amniga si weyn u xaqiijinaya. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya ahna madaxa howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM mudane James Swan. labada mas'uul ayaa la sheegay in ay kulankoodu uga wada hadleen iskaashiga u dhaxeeya dalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay si loogu adeego Soomaalida. waxa kale oo isla falanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo nabadgelyada dalka. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu mar kale ku celiyay taageerida dalalkiisa u hayo dalalka wakiilada gaarka ah iyo qorshaha howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. kusoo dhawaada wararkii dibadda. ciidamada booliska dalka Koonfur Afrika ayaa xabsiga dhigay in ka badan 70 ruux oo falal biliiliqo ah ka geystay goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka ajaanibta ah ee ku sugan magaalada Johannesburg. ciidamada booliska ayaa rasaas injirka ah ku kala eriyay dadka geysanaya biliiliqada iyo boobka, waxaana warkii uu intaa ku daray in ay gubeen gawaari fara badan oo yaala hareeraha wadada. biliiliqadaasi loo geystay dadka ajaanibta ah ayaa yimid xilli ay magaalada Johannesburg ka socotay banaanbaxyo cabasho ah oo ay lagu dalbaday in dalka laga saaro ganacsatada ajaanibta ah. gudoomiye xafiiseedka gobolka Johannesburg iyo saraakiisha sarsare ayaa cambaareeyay tallaabada lagu kacay ee goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka ajaanibta ah ee magaalada Johannesburg.